waxaad arkaysaa qof kasta oo adduunka ku nooli waxa uu leeyahay role model ama qof uu ku daydo oo uu kaga daydo waxa wanaagsan ee uu doonayo inuu sameeyo. waata keentay ummadani in ilaahay u soo diro basharkii ugu qiimaha badnaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. ilaahay jalla wacala wuxuu ka dhigay rasuulka qudwo ay cid kastaaba kaga dayan karto waxa wanaagsan iyo samaanta oo dhan. waxaa jiray xilli laga joogo sanado fara badan nin ku noolaa ardulxijaas. ninkaasi wuxuu u darbanaa oo uu haystay caynaanka faraskiisa meel kastoo ilaahay diintiisa koryeelkeeda lagu sheegana uu aadi jiray. waxa uu lahaa oo uu dhaqan u ahayd inuu u noolaa oo keliya inuu ilaahay raali geliyo iyo koryeelka iyo kelimada alleh inay sarrayso. waxa uu tegay mushrikiinta iyo muslimiintu meel ay isku haysteen oo la yidhaahdo raaqa oo ku taala shaam. waxa uuna ka baxay xijaas. waxa uu dhambalay saxaaraha weyn iyo dhulka ciraaq. waxa uuna gaadhay halkii ay markaa dhibaatadu ka jirtay. waxa uu tegay masaajidka dadkiina waxa uu u sheegay inay ilaahay diintiisa koryeelkeeda u soo baxaan waxna la baxaan. in badan oo ka mid ah dadkiibaa ajiibay waxayna u soo degdegeen inay maal iyo xoogba ay ku bixiyaan litakuunu kalimatullaahi hiya alculyaa. markii ay ahayd habeenkii waxa uu seexday guri yar oo simbal ah oo aan ka fogeyn masaajidka. haddii ay ahayd xilli dambe oo habeennimo ah isaga oo tukanaya salaatuleyl ayaa waxa ku soo garaacay qof dumar ah. haddii uu ka furay oo uu weydiiyey sababta ay u socoto isaga oo la ashqaraarsan ayay u sheegtay iyada oo xijaaban oo aan tiriya cidhib meella laga arag. waxaan u imi oo inaan ogaado inaad tahay ninkii maanta dadka ugu yeedhayay inay ilaahay dartii wax ula baxaan. waxa ay u dhiibtay warqad iyo guntin. warqaddii haddii uu furay waxa ku qoran anigu waxaan ahay qof dumar ah. sawjkaygii macnaha ninkaygii iyo wiilashaydii curadna waxay ku shahiideen dagaaladii hadda ka hor dhacay. ma haysto xoolo iyo waxaan la baxo. waxaan jaray timahayga waxaanan ka sameeyey xadhig. ilaahay baan kugu dhaariyey ku xidho faraskaaga. waxaan rajaynayaa maalinta qiyaame inay ii shafeecaane. waan la ashqaraaray wanaagga iyo ilaahay qalbigeeda samaanta uu dhigay. waxaan ka qaatay xadhiggii waxaanan ku xidhay faraskaygii. markii aanu dhaqaaqnay ciidamadii diyaar garoobayna ay magaalada ka baxeen ayaa waxa naga daba dhawaaqay wiil yar oo shaab ah isagoo naga dalbanaya inuuna raaco. waxaan ku idhi haddii aad nin weyn tahay waadna raacaysaa. imisaad jirtaa? wuxuu yidhi waxaan jiraa 16. waxaan ku idhi orod oo aabbaha u soo khidme. wuxuu yidhi aabbahay ma noola oo wuxuu ku shahiiday dagaaladii hadda ka hor dhacay. waxaan ku idhi orod oo hooyadaa suxbadeeda wanaaji. waxa uu yidhi hooyaday waa islaantii xalayto kuu keentay guntinta iyo xadhigga. waxay soo fartay in aan ilaahay diintiisa iyo koryeelkeeda aan u shahiido. waxayna ilaahay ka bariday markii aan soo baxayay inuu hadiyadda ka aqbalo. waxay soo fartay inaan ku salaamo aabbahay iyo walaalahaygii curad ee shahiiday kal hore. waxay bartay 114 qur'aanka ah. waxay bartay fardafuulka, shiishka, saburka iyo adadayga. hooyaday ma jecla inaan ku soo noqdo ee hay celin adeerow aan ilaahay diintiisa iyo koryeelkeeda aan u baxee. runtii arrinkii waan la yaabay. waxaana ila noqotay wax cajiib ah uunana raacay. maan arag qof ka firfircoon oo ka nashiido iyo activity badan. marka ay dadku daalaan isagu ma daalana. markasta waa feejigan yahay.
heegana wuxuu u yahay u darban inuu qabto wax kasta oo loo baahdo. markii ay daaleen jameecadii ayaa loo baahday cid u khidmaysa oo wax u karisa. wuxuu yidhi aniga ayaa khaadim u ah jameecada, aniga ayaa u khidmaynaya jameecada. waxaan ku yidhi orod oo soo khidmee. markii uu khidmadii bilaabay oo uu naga soo raagay ayaa waxay igu yidhaahdeen jameecadii, war saaxiibkaa wuu naga raagaye bal orod oo u tag oo ka wardoon. haddii aan u tegay waxaan u imi isagii oo ay hurda ka qaalib noqotay markii uu shaqadii qayb ka mida bilaabay oo hurda. waxaan nacay inaan kiciyo, waxaan kaloo nacay inaan jameecadii dib ugu noqdo iyagoo gaajaysan. waxaan bilaabay inaan shaqadii qaybtii ka dhinayd aan dhammaystiro. anigu waxaan fiirinayay wejiga wiilka yar oo ay ka buuxsantay farxadi. waxa ku soo taagnaa qosol aan muuqanayn. qosolkii ayaa ku fiday wejigiisa. waxa uuna isu bedelay inuu dhoola caddeeyo ilaa uu markii dambe qoslay cod ah, kadibna uu hurdadiiba ka kiciyey. markaas isagoo qaylinaya ayuu igu soo booday oo leh, Abu Qudaamow, shaqadani waa shaqadaydii ee iidaa shaqadayda. waxaan ku idhi kuu dayn maayo ilaa aad ii sheegtid wixii kaa qosliyey. wuxuu yidhi maad idaysid aniga iyo allah dhexdayda ha ahaatee. waxaan ku idhi ii sheeg, ilaahaygii ku abuurtay baan kugu dhaariyey. wuxuu yidhi waxaan galay aljanno wa arduhaa sacfaraan annaciim almuqiim aladiina laa yaxulu walaa yasuul. waxaan ku socday wax aanan sifayn karayn, laa yasifu waasifuun. waxa aan ku soo dhaqaaqay oo hortayda ah qasri aada u weyn. qasriga waxa uu ka samaysan yahay ilaahay uunbaa qiimayn karaya. maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar. haddii aan ku soo dhowaaday qasriga waxa ka soo jeeda daaqadihiisa gabdho. markii aan u soo dhowaadayna waxayba ka sheekaysanayaan waa aniga. markii aan maqlay sheekadooda ayay waxay isleeyihiin haadaa sawjul mardiya, war ninkaas soo socda ee akhyaarka ahi waa gabadha mardiye la yidhaahdo ninkii qabay. waxaan ku idhi ma idinkaa mardiye ah? waxay yidhaahdeen maya, ee annagu waxaanu nahay shaqaalihii mardiya. ma waxaad rabtaa in aad aragtid mardiya? markaasaan ku idhi haa. waxay dhaheen soo gal qasriga oo kaalay receptionka oo soo kor oo dabaqan kaalay oo halkan kor oo shajaradan ka deg. kadibna waxa aan koray oo ay siiyeen directionkii aan ku gaari lahaa qolkii ay joogtay mardiya. markii aan isu soo taagay albaabka, ilaahay baa garanaya qiimaha iyo shacniga iyo wanaagga yaalay gurigii ay ku jirtay mardiya. albaabkii baan soo galay. waxaan ugu imi mardiye oo meel dhexe oo aad moodid loo diyaariyey oo mambar ah fadhida, iyadoo qoslaysa oo wejigeeda ay ka muuqato ilaahay unbaa qiimayn karaya quruxdii iyo shacnigii iyo wixii ilaahay uu ku abuuray ee wanaagaha. markii aan u soo dhowaaday ayay igu tidhi soo dhowow weligii ilaahay iyo kii uu raxmaanku jeclaayo. soo dhowow. iyadoo aan dhammayn hadalladii soo dhowaynta ahaa ayaan miyir doorsoomay. haddii aan ilaahay ii naxariisanna miyirka iyo maankuba waa iga tegi lahaayeen quruxda iyo ashqaraarka iyo wixii aan meesha kula kulmay. waan ishayn kari waayey oo waan isku soo qaaday anigoo doonaya inaan handado oo aan hadalka soo dhaafo oo iyada aan xaggeeda u soo dhaqaaqo. waxay igu tidhi intay iska kay qabatay kuma bannaana inta ka horraysa berrito bacda duhur. markii aan halkaa marayay ayaan istaagay oo aan hurdadii ka kacay. wixii aad arkaysay iyo dareemadii iga muuqanayay iyo isbedeladii wejigayga ku dhacayaba waxay ka turjumayeen dareenada iyo riyada aan ku riyoonayay xilligii aan barkanaa dhagaxa. waxaan ku idhi khayr insha allah. waa mucjiso, waa cajiib, waa arrin iyo qiyam iyo aragti
mustaqbal leh. Ogow oo berrito bacda duhurna waa xilliga uu dhex mari doono dagaalku muslimiinta litakunu kalimatullaahi hiya alculyaa u dagaalamaya iyo mushrikiinta daaquudka u dagaalamaya. walaalayaal, inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.